السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا مرك هره جبيهان والله الصوماليات هل كان يقدر وريا ميل والبو أشوكتان يحل والبو يدين تهي. وحندوني أنا مقال كان عن أوجه هذا الله عربها الحريرة فيسبوك يدا أي ليهين دتك الشخصيات كأ مركزي لور ريبوت جرينا يشترك فيسبوك أو اللي هي هبل وودنتا. وحين قلنا هي لبع أسبوع أما سد أسبوع كهر وها فيسبوك جيسي الحري علي وإنه أكسون هاي إنه يهاي نين رنتي سامين وين كل حله براه برشة إسلام مركزنا كترسن جماهير نبض نلول وعكر الله حري نيكلو يقانو سياسي على داعون أو أضي ربع دايا وسياسي أو مركز اللي عيرسني أرتديس اللي هو عيرسني أي أسنى صدق عليه لبع أسبوع إلا يستح أسبوع كهر لقى حري فيسبوك جيسا وحالي أما عاوي سيدين تهيبة صدق عليه لقى حري نعيمة أبوان قرني أيضا كم ده dhalinyarada u ololeeya jamaahiirta nabad iyo nolol ama ka tirsan waxaan rabaa inaan muuqaalkan aan ku falanqeeyo dhowr arrimood oo idin sheegi doona sida waxaan u dhaceen iyo cidda ka dambaysa iyo waliba sida la isugu dayi karo in arrintan xal looga gaaro hadii dadaal badan la muujiyo waxaan marka hore ka hadli doonaa maxay tahay waxa ay u baahan tahay shirkadda Facebook inay samayso markaasi talaabada qofkaani in laga dhigo qof dhintay waa maxay sharuuda ay u baahan tahay oo mid koowaad waxaan kaloo ka hadli doonaa arrintaani dad shacab ma sameyn karaan baan ka hadli doonaa waxaan kaloo ka hadli doonaa maxaa sababay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ee cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud looga shakiyo inay ayagu arrintaani fuliyeen waa maxay tuhunkaasi xagee ka yimid waa maxay xogta laga helay finally waxaan kaloo ka hadli doonaa gudaha dalka Mareykanka arrintaani ma laga sameyn karaa hadii loo istaago oo dadka aniga iyo dadka la midka ah ay ka shaqeeyaan arrintaani ma laga furdaami doonaan waa ka hadli doonaa afarta su'aalood ayaynu marka ku fahmi doonaa wixii meeshan ka dhacay hadii aan ku hormaro dhanka Facebook-ga wuxuu Facebook u baahan yahay halkaan aan soo dhigayaa formka loogu talagalay in la buuxiyo dadka inta badan dhinaca reportka inta qofka profilkiisa ay tagaan bay soo report gareynayaan halkaas ka soo arkayaan formka laakiin waa form caalami ah oo hadii aad xataa Google-ka ku qorto maxaa la yiraahdaa aad ku search garayso waad soo helaysaa uma baahna xagga kaliya tagto waa page caadi ah oo u baahan in la buuxiyo oo la fill up gareeyo halkaan waan soo saaraya si markaasi Facebook loogu sheego in qofkaasi uu dhintay hadii uu dhintayba marka ilaa afar waxyaalood ayuu u baahan yahay ama shirkadda Facebook ay u baahan tahay si qofkaan loo saaro calaamada ah in qofkaan dhintay midda ugu horeysa waxay u baahan yihiin waxa weeye waa sawir muujinaya qofka aad jeceshahay inuu dhintay sawir muujinaya way markaysa bil macna meeshii uu ku dhintay oo kale hadii uu accident ku dhintay oo kale sawir laga qaado maybe isbitaalka asoo ku jira oo kale oo dhintay in sawir laga qaado laakiin sawir muujinaya qofkii aad jeclayd inuu dhintay ba loo baahan yahay waa shuruudda ugu horeysa si qofkaasi loo saaro calaamada waxa loo yaqaano in qofkaasi uu dhintay shuruudda labaadna waa in markaasi la sameeyo memorial card dadkan gaalada inta badan meelaha markii ay qofkooda aasayaan ama ay gubayaan wax walba ay sameynayaan waxay sameystaan isku imaad gathering sida anaga waxaynu duugta dhahno oo kale kaar marka invitation waxay qaybiyaan marka kaar muujinaya in dadka loo diray invitation kaar oo muujinaya in qofkaani uu dhintay isla markaasna taariikh la soo dhaafay ama taariikh soo socota isla markaas loo sameyn doono isku imaad tacsiya kaar muujinayana way u baahan yihiin waxay kaloo u baahan yihiin arrimaha kamidka shahaadada dhimashada in loo dirana way u baahan yihiin waxay kaloo ku dareen other documentation oo cadeynaya in qofkaan uu dhintay soo marka afartaas waxyaalood ayaa aas markii aad akhriso formka meeshiisa lagu dirayo formka oo lagu dirayo documentationka afartaas waxyaalood baa ku qoran dabcan mid kamid ah hadii aad dirto way aqbalayaan hadii ay u arkaan inuu sax yahay Soomaaliya marka maxaa laga diri karaa Soomaaliya waxyaalo badan baa laga diri karaa hadii la doonayo marka qofka in la report gareeyo inuu dhintay waxa la diri karaa dhalashadiisa ayaa la diri karaa ama passportkiisa la diri karaya oo hadii dhanka maxaa la yiraahdaa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo dhankaas hadii laga keeno qofkan passportkiisa iyo dhalashadiisii oo moori dawladeed saaran yahay isla markaasna waraaq lagu daray turxaan bixin iyo arrimahaasi way aqbalayaan waxay kaloo aqbalayaan dhimasho ka soo baxday isbitaalada dawladda oo kale government hospitals oo kale
oo hay'ad dawlad ka soo baxday ama istaalo markay raadiyaan istaalo waaweyn ah oo bareefada oo kale way aqbalayaan waxay kala raadinayaan ama ay aqbali karayaan waraaqda dawladda ka timaado affidavit ah ama document ay dawladdu qortay qof dawladda kamid ah uu qoray oo lagu attach gareeyay qofka qoray wasiirka oo kale ama hay'adda ka shaqeynaya oo kale oo qoray way aqbali karayaan haddii loo report gareeyo qofku inuu yahay shaqaale dawladeed oo kaarar uu leeyahay inta la sameeyo loo diro document kale lagu daro oo turxan bixin ana way aqbalayaan soo marka dawladda dhankeeda ama Soomaaliya haddii si qaldan loo isticmaalo sharciyada iyo hay'adaha dawladda waxyaalo badan bay diri karayaan oo ay aqbalayso shirkadda loo yaqaan Facebook arintani samayn karaan dad shacab way su'aasha aan u baahanahay inaan isla fahno runtii research badan baan sameeyay waxaan akhriyay article badan baan akhriyay oo meelo badan looga qoray arintan dadku aad raadisaan waad soo arkaysaan waxaan ogaaday in runtii ay adag tahay in qof shacab arintan uu sameeyo dadka shacabka ah qaabka kaliya oo ay ku report gareyn karaan waa inay yiraahdaan qofkaasi ama saaxiib baynu nahay ama walaalaynu nahay family and friends bisa loo galiyaa inay report garayaan oo ay dhahaan qofkaasi dhimashaha la saaro Facebook shaqeynaya oo kale Facebook markii intaasi ay sameeyaan loo diro iskama xirayaan waxay fiirinayaan qofkaani saaxiib ma tihiin waxay fiirinayaan chatting-kiini friend Facebook ma ku tihiin misla chat garan jirteen translation bay gelinayaan way fasirayaan wixii aad ku hadli jirteen chatting-kiini ma ka dhex muuqataa inaad walaalo ahaydeen ama inaad saaxiib kale ahaydeen ka dhex muuqataa waxay fiirinayaan inaad adigu tacsi u soo dirtay ama dadka aad wadaagtaan oo mutual friends-ka atiin tacsi may u direen oo qofkaani ma laga soo heli karaa tacsiyo aad dirteen adiga iyo dadka kula asxaabta ay meelaha khaasada qofka diraya waa inuu tacsi lagu arko oo kale isagu diro oo kale arrimaha dhan bay fiirinayaan haddii marka waxa soo inay arki waayaan runtii way adag tahay marka in 90% ay aqbalaan aniga caawa haddii aan dabcayna qof ka report garay oo waxa aan diro way adag tahay qofka hadduusan dhimanin ama uusan asxaab ila ahayn ama uusan walaal ila ahayn ama uusan qaraabo ila inay sameeyaan waayo in la proof garay ayaa waxay u baahan tahay arrimo adag bay u baahan tahay wax qof walba sameyn karaba shirkadda Facebook-na waa dad garanaya sida ay waxaan u shaqeeyaan xiriirka idinka dhaxeeya la fiirinaya haddiina saaxiib ahayn isma taqaanaan way dabcan si ay u arkaan haddii chatting-kiinu uusan ahayn mid ay ka muuqato saaxiibtinimo iyo walaalnimo waxba idin kama dhaxeeyaan way haddii tacsil laga waayo iyo arrimo kale oo muujinaya cid waxaas meel ka soo qaadaysa ma jirto haddaba marka maxaa keenay marka in shaki weyn uu ka yimaado dhanka dawladda inay qorshahan ay ka dambeysay waxyaalo badan baa soo baxaya waxaan helayaa xogo sheegaya oo madax bannaan oo dad kala duwan oo badan ka imaanaya oo cadeynaya in hay'adaha dawladda qaybo kamid ah ay arintan direen foomkan ay direen waxaa la leeyahay page-ka dawladdu ay leedahay qaybo kamid ah oo verify gareysan ama calaamada tigta asaaran in markaasi lagu diray application-kani oo ayagaasi ay direen markaasi tixgelin weyn bay marka dawladdu ay muujinaysaa Facebook website-yada iyo page-ka dawladdu ay leedahay oo verify gareysan si kale oo khaas ah ay ola macaamilaysaa maadaama ay horay u xaqiijiyeen inay yihiin page dawladeed inay yihiin horay ayaa loo ogaaday markaysaan ama midka nisaha ahaado ama midka wasaaradaha kale ha ahaado ama kuwa baarlamaanka ha ahaadaan ama kuwa filada hay ahaadaan ama kan ra'iisul wasaaraha naftirkiisu ha ahaado oo OBM-ka ah waliba ka loo badinayo haddaan dhabta idin sheego waa kan ra'iisul wasaaraha loo badinaya markaysaan dadka sida xogaalada arintan ay sheegayaan ayaan sheegaya ilaahay baa garanaya anigu cid dirtay ma garanayo laakiin sida ay xogu ay noo soo gaareen baa idin sheegaya soo marka page-kaasi verify gareysan oo Facebook uu horay u ogaaday inay dawladdu leedahay ayaa lagu diri karaya ama lagu diray isla markaasna waxa la raaciyay message kale iyo documentation kale ayaa la raaciyay sida passport sida dhimasho sida waraaq kale to affidavit ah oo la sheegayo in markaasi qofkaani uu ahaa qof dawladda u shaqeynayay waxa kale oo jirto oo soo ogaaday in haddii qofka asagoo dhintay Facebook-giisa dad kale ay si isticmaalayaan oo la yiraahdo shirkadda Facebook qofkaani wuu dhintay dad kalena si isticmaalaya waxay ku fiirinayaan il gooni ah qiyaas marka hadii dawladdu ay tiraahdo qofkan Facebook-giisi wuu dhintay shaqaaladoodeed buu ahaa documentation-kiisi waa kana isla markaasna dad kale ayaa ka faa'iideysanaya oo isticmaalaya oo telefonkiisa gacanta ku dhigay oo xogihii dawladda ayaa gacanta ka baxaya ayaa la leeyahay soo marka waxay saarayaan marka runtii si degdeg ah ay u xirayaan oo waxay ka baqayaan in mataqaana xogaha dawladaha ay gudbaan bay ka baqayaan
tusaale oo kale page-ka Naciimo Abwaan Qorane ayaa arintaasi ay ka dhex muuqataa Naciimo maanta oo dhan page-keeda ku soo qoraysay post badan bay soo qortay ilaa 20 ilaa 12 post bay soo qortay isla markaasna waa la xiray marka Facebook way arkayaan in qofku uu mataqaana cid ay wax soo qorayso in wax la soo qorayo in page-ku active yahay way arkayaan qof marka page-kiisa uu active yahay in la xiro waxa keeni karaya marka waxa weeye waa in la yiraahdo page-kaani gacantu ka baxay qofkaani qof dawladeed buu ahaa waxa la heli karayaa dhalasho loo sameeyo Naciimo waxa la heli karayaa passport-keeda oo laga soo qaadi karo wasaaradaha waxa la heli karayaa documentation kaleeto oo ay dawladdu sameeyso oo fake ah laakiin magaca dawladdu ugu sameeyay waxa lagu diri karayaa page-ka dawladda iyo arrimahaas oo dhan marka runtii xogta ah in ay dawladda ka mid ah ay arintan sameeyeen way xoogantahay si weyn bay u xoogantahay anigu ma garanayo shakhsiyan qofkii sameeyay laakiin waa arin dadka xoogaalka ah ay si weyn ay u wadaan finally waxaan ku soo koobayaa shirkadda Facebook-ga arrintaani ma lagala hadli karaa dadka Mareykanka jooga anigu aan ku jiro arrintaani may ka hadli karaan oo shirkadda ma la hadli karaa markii la joogo gudaha dalka Mareykanka shirkadda Facebook-gu waxay ka mid tahay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalkan ku yaala ay ka mid yihiin xafiisay leeyihiin ilaa iyo ugu yaraan 30 xafiis bay ku leeyihiin dalkan Mareykanka xafiisooda la tagi karaa telefoon loo kale leeyihiin waa la wici karaa waana la hadli karaa markaysan ma xaqiijin karo marka in loo tago in la hadlo sida ay arintaani si degdeg ah ay wax uga qabanayso hadii qofka ay wax ku dhaceen oo aniga yahay oo kale waxaan aaminsanahay inay fududahay in la fasaxo oo inta xafiiskooda la tago ayaan waxaan geysan lahaa sharcigayga isla markaasna ma dhiman baan oran karaya intaas ay ugu filan waxaan rabaa inaan arintan aan ku daro waxaa jira nin saaxiibkay ah oo sanadii la soo dhaafay oo 2021kii laga xiray magaciisa wacdi wadan la yiraahdo kana mid ah dhalinyarada jamaahiirta oo reer Denver Colorado ah xarun bay ku leeyihiin Denver dadkii kala xiriiray oo arintaasi kala hadlay oo damcayna kala shaqeeyay ayaan kamid ahaa xafiiskoodu tagay wacdi ninka dhalinyarada ah wacdi la yiraahdo isla markaasna way u soo fasaxeen ay dhigiisu geysta inkastoo uu ka xirnaa taqriiban 4 ilaa iyo 3 week buu ka xirnaa laakiin way u soo sidaayeen markii ay dhigiisa arkeen raali gelin way ka bixiyeen soo marka waxaan rabaa ka Xuseen ahaan aniga ah inaan maalinta talaadada ah ee fooda nagu soo haysa ilaa talaadada inta ka soo horeysa dalkan wuxuu ku jiraa holiday ku jiraa bisha 4teeda waa maalinkii ay xurriyadda qaateen Mareykanku marka ilaa iyo la gaaro talaadada inta ka soo horeysa ee xafiisyada dawladda iyo shaqooyinka dhan way xiran yihiin dad yar baa shaqeynaya marka wixii maalinka talaadada loo gaaro ayaan doonayaa inaan bal isku dayo ka shaqsiyan inaan isku xilqaamo inaan Facebook u report garayo in على داعون يا علي يرى ينعم أبوان قرنا بقى يجين دد أنا وأنا قانو أصحاب تدا قرابة تدا أنا إسلام مركزنا بيجيش كذا سقل دم الله حري أو سياسة ليسان ويبهين إن مركز سيد ديان ما هو مركز عرض سيد وشقين دون لكن هذا عن قيب كقاطو هذه مركز أي تلفون كإيجا قبطان أو conversation إنه باللوضو وحنسكت ده يدور مركز أن أيجي يسكت حرو أو مركز أن إيميله ده يتلفونه أو فيشر كاسيو هذه عن بأيجا عن كهرو تلفونه سيد علي يرى نعيمه كما هيو تلفون يكونتاكتي لكن واحد يري كانوا يداو بهناي مركز أرنتاس الدنيا يعني أنا شخصيا عن كشقيه أدي صورة قلتها مركز إنه حلاقة قبان كرو عارف قف كستا أو أرنتا محقق قبان كرو أو ليبا سيدا دقن أما دنفر دقن أما ماشي لو يقانو شيكاغو دقن أنا ماشي يقصو كيسا وا شيكاغو أو أي حرم كليين فيسبوك تقريبا إلا إيو 600 كيلومتر 700 كيلومتر بيجرتا إنك استوان أد شيكاغو تاغو هادنا سيلبا وها هاتو حتى هدي أي نقطة حتى إن لك تاغو oo ayaga la hadla xataa inaan ka qayb qaato ayaan diyaar u ahay si arrintaani aysan u noqonin arrin markaasi soo laabata finally waa ku ceeb dawladeena waan ku fadeexo in dad shakhsiyaada oo fikirkooda cabiraya ay isku dayaan in beejajkooda laxnimo cabsi laga qabo qiyaas dawladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaan ogaabay Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo nimanka la midka ah ay u caayayeen oo ugu baaqayeen dagaal qabiilaysan iyo waxaan ogaa وسقرشاني ما أهبا فيسبوك اللي جوده حوده هدي له ريبورت قرن لها والله استعمال لها شاتي الدولة ده حالكوده محن نقول لها وسؤالش عن رمانت إنه سويدين مركزان وحمر كمان الدولة دي عصبات الصومالية يحسن شيخ محمد الدولة دي سأي سمعنا يعني كنت وعي على السوق نمو دولتنا لما أورن كريه وحنا وأنا موريان نمو كنت أركل ولا بحيوي مركزان وعيب إن ده فكر كده عبرية حق بقول يقفكم موادن كا دولة أم حتى جرو أم هم عارضه أم وحدون هالشيء إن قفك فكر كيسة loo xanniyo Facebook-giisa waa waxayna hore u aqoonin weeye laakiin waxaan hubaa kuwan markii laga sii daayo kuwa dambe in ay xirto shirkadda Facebook way ka fiirsan doontaa waayo wax markay soo laabtaan kiiska noocaaya
shirkadu way ka fiirsan doontaa markaysa marka ayagaana waa loo soo siideyn doonaa dadka ka dambeeyana shirkadu way ka fiirsan doontaa inay ka xirto waayo waxay noqonaysaa arrin soo laalaabatay laakiin dawladdu ceeb bay ku tahay kaliis saliisnimadii marka farmaajo lagu sheegayay maanta waxay dul hoganaysaa xasan sheekh maxamuud عليرا laga xiray asagoo xataa wali mucaarad ku ahayn عداعون baa laga xiray asagoo mucaarad ku ahayn naciima laga xiray because of simply Roble wax ka sheegtay tiri waa baahan markaysa Roble inuu baahan yahay cid walba cid qarin kartaa ma jirto Roble inuu baahan yahay it is clear markaysa intaasaan ku soo koobay hadii aad muuqaalkan u aragtaa inuu muhiim u yahay walaha Soomaaliyeed si wadaaga aynu ka shaqayno sidii marka aynu qayb uga qaadan lahayn in waxaan soo laabtaan iyo sidii ay dawladeenu marka loo sixilaa waxa ay suubinayso foosha xun markaas looga damqan lahaa intaasaan ku soo koobaya inta dib soo laabanayno waxaan idinka tagay sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh